بسم الله الرحمن الرحيم. dadka reer Somaliland aad iyo aad baan u salaamayaa. Maanta waxaan jeclaysan lahaa inaan ka hadlo hal mowduuc oo in badan ay shaqadeeda lahayd dowladnimadu lahayd, laakiin aad moodo in waxyaabo fara badan oo kale oo iska hoose aynu kaga mashquulnay. Dowladdu ay kaga mashquushay, aqoonyahanka dalka jooga uu kaga mashquulay, jaamacadaha faraha badan ee dalka ka jira ay kaga mashquuleen hawl la wada lahaa, laakiin dowladdu hoggaan u ahayd oo meelaha ummadda laga quudiyo maskaxdooda laga quudiyo indhaha loogu furo inta badan lagaga hadlo markaa bedela muxuu hab fikirka waxaan la yidhahdo psychoanalysiska ummadda bedela oo garansiiya meeshay ka yimaadeen iyo halkay u socdaan iyo waxa la maagan yahay garansiiya oo la socodsiiya wadciga markaa jira dalkooga uu ku jiro iyo waxa ku xeeran arrimaha ku xeeran ee mandaqada ay degan yihiin iyo guud ahaan gobolka ama si ballaaran maadaynu eegnaa adduunyada inteeda kale. waxaa la yidhahdaa mawduuca public relations baa la yidhahdaa. waxa weeyaan xiriirkii dowladdu iyo dadkaygu ay wada sameeyaan ee isfahamka noocaasa lagu sameeyo marka hadday mashaariic dowladdu fulinayso haddii ay siyaasada fulinayso inta badan halkay ka imanayaan halkaasay noqonaysaa oo dadkii oo maskaxdoodu kor loo qaaday oo yaqaana xaqooda yaqaana xaquuqdooda yaqaana waajibaadka saaran yaqaana halka loo socdo yaqaana halka ka yimaadeen taariikh ahaan ayaa isla jaan qaada. marka public relationskaasi waa uu inaga maqan yahay. wasaarado dhowra u samaysan oo shaqadoodu ay tahayna waxaa qabtaan laakiin waxay kaga mashquulaan howlo kale oo inta badan iska siyaasad loo kala ayaynu dhammaanteedba ku wada mashquulay. dowladnimadii nagaga mashquulshay, nidaamkii axsaabta badnaa uu ku mashquulay hadday mucaarid yihiin iyo hadday maxaafid yihiinba, jaamacadaheenni ay ku mashquuleen, dadkeennii indheergaradka ay ku mashquuleen. waxaad moodaa inagu inaynu adduunyadoo dhan isku aragnay waxaynugu xeeran iyo waxay naga shisheeya iyo waxaynu ku jirno aynaan qiimaynba karayn. marka taasina waxay sababaysaa oo aakhirka ay keensanaysaa inaynu dhibaato iyo goddheer ku dhacno iyo hoodaan weyn oo aynaan sinaba uga soo bixi karin. arrintaa aan ka hadlayo waxa igu kalifay maanta waxaan dhegaystay shalay BBC-da oo baraha bulshada iyo meelaha kale websiteska kale ee Somaliland dadkaygu ay leeyihiin ay aad u faaqidayeen oo lagaga hadlayay 4 nin oo laba ay ka tirsan yihiin dowladda Somaliland, gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani iyo wasiirkeena madaxtooyada oo labaduba ay Somaliland ka socdaan oo qarannimada de Somaliland bay ka socdaan. idaacadda BBC-da ayaa casuuntay oo siyaasadeeda la yaqaano marka qaybta Soomaalida ay noqonayso siyaasadeedu ay caddahay oo aan marnaba danaha iyo masalaxa Somaliland aan ka shaqayn, laakiin intaa cakiskeeda ka shaqayso Somaliland qarannimadeeda inay jabiso ama buriso ama beeniso waxyaabaha wanaagga ah ee Somaliland ka socdaan ay qariso, waxaan macno badan samaynayno oo aan xumaan ahayna ay faafiso, isla markaana ay barbardhig ku samayso Somaliland iyo stateska ka samaysan muxuu ahaaye Soomaaliya oo qadiyadda siyaasadda maanta Somaliland ay isku hayaan iyadoo isbarbardhigaysa ama Puntland ama Somaliland ama kuwa kasii hooseeyaba isbarbardhigaysa, isla markaana indhaha ka qabsanaysa qadiyaddii saxda ahayd iyo taariikhda saxda ah in labadan gobol ay xilli ahaan jireen laba gobol oo taariikhdoodu ay kala gedsan tahay laakiin isu yimid oo taariikh isku mid ah samaystay sanadii 1960kii 30 sannadood isku jiray ama 30 sannadood isku jiray deetana waxba ka hagaagi waayeen hawshoodii deetana kala noqday. taa way iska indha tirtaayoo burburkii Soomaaliya iyo disintegration and fragmentation of the Somali people ayay ka dhigtaa inay waxaan ku yimaadeen oo xaqiiqda inta badan dahabay saartaa. taasay igu kaliftay markaa bal waxaan doonayaa inaan la hadlo dadka reer Somaliland maanta oo sheego qodobo ilaa iyo 7 ah oo Somaliland ay soo martay oo muhiima inaynu halkaa ka duulo oo psychoanalysiskeenu ama sidaynu u fikiraynaa ay halkaa ka dhaqaaqdo si aynu markaa u garanno waxay naga qaldan iyo waxay noo saxan iyo wax walba waxaad ila garanaysaanna weeyi, laakiin xasuusteeda ayaan idin siinayaa insha allah. waxa ay Somaliland soo martay kow culays siyaasadeed oo fara badan baa ku yimi, halgan dheer bay soo gashay, waxay kasbatay dagaalka noocaas waxaa la yidhaahdaa war on liberty baa la yidhahdaa. muddo ilaa 82kii ilaa iyo 1990kii bay kusoo jirtay. kaa way ku guulaysatay dagaalkii halganka way ku guulaysatay. waxaa yimid markaa dagaalkii nabadda lagu sameynayay waayo waxaan waa halgan wey, halgankii nabadda lagu sameynayay baa yimi
taana way ku guulaysato shirarkii ka dhacayay boorama iyo burco iyo berbera iyo sheekh iyo hargeysa dhammaan waxa ahaayeen kuwa nabadayna oo mashruuca ah in ummadan la walaalayo la nabadeeyo ayay ku dhacayeen waxaa jira intaa dhinaca socday iyaguna lagu guulaystay in qarannimada la dhiso state building in la sameeyo ayaa lagu guulaystay iyadana oo loo adeegsanayay markaas ay taasi u suuro gasho in la sameeyo waxa la yidhaahdo formation of functioning governance ciidanka hubka laga dhigo demobilization ha la sameeyo ama disarmament ha la sameeyo ama ha la sameeyo reintegration haddana dib ha laysu dhexgeliyo oo iyagii dib ha loo qarameeyo oo qofkii bannaanka marka hore taagnaa qorigii sitee dadka leynayay dadka dhacayay dadka boobayay inta lasoo qabto dibdejina lagu sameeyo dib ha loo qarameeyo qarankii ha u adeego dowladnimada sidaas ayaynu ku keennay ammaankeeda mashruucaasi mashruuc aad weyn buu ahaa waynu ku guulaysanay mashruuc weyn oo ballaaran ayaduna adduunyada weliba inaga caawin baynu ku guulaysanay mashruuc weyn oo ballaaran oo kaa ka weyn baa jiray oo isagana aynu ku guulaysano waxa weeye mashruucii in cashuur la ururiyo oo ummadda cashuur laga qaado intii wax haysata laga qaado oo ay waxay shaqeeyaan waxaa la yidhaahdo internal revenue-gu uu noo shaqeeyo internal revenue and customs ay noo shaqeeyaan oo aynu markaa samayno national spending ciidankii mushaar la siiyo shaqaalihii dowladda mushaar la siiyo madaxdii dowladda waxoogaa mushaara helaan si ay shaqada iyo hawsha dowladdu ay qabanaysaa u socoto waayo dowladdu public projects bay qabanaysaa oo dee dowladnimada maalin walba waxay u socotaa wax weyn inay dhaqaale hesho ay ku badbaado ayaa loo socodsiinaya marka mashruuca weyn ee dhinaca ururinta muxuu ahaye internal revenue-ga oo dadkeena ka imanaya iyagoo waxba haysan oo qaxoonti kasoo noqday ayaabaynu ku guulaysanay tabarucaad bay sameeyeen dadkii markaa masaakiinta ahaa ee cashuurta laga qaadiyay kuwii dhisayay ee xabadda u dhex joogay walaalaynayay dagaalkaa faraha badan aynu kusoo jirnay nabad samaynta lahaa ee halganka lahaa ee qarandhiska lahaana iyaguna mushaarna may qaadan jirin badidoodu inta waxay waalgamayeen waa somaliland bay ahayd laakiin maanta mushaar wanaagsan buu wasiir ku qaataa wuxuu ku dhuxa fadhiya dhowr milyan oo dollar bay wasaarad walbaaba ku fadhidaa sanadkii isagaa rangareeya wax badan oo lagu qabto horumarin ma jirto waynu ognahay markaa wasiirku waa ka adarkayso dadka aad buu uga koreeyaa maalintii waxaa laga yaabaa inuu 10 qof 20 qof 50 qof 200 qof 500 qof uu casuumo oo kaba badan ba mushaarka isaga u qoran ka badan markaa taana insha Allah waynu hagaajin doonaa dagaal adag baynu ka geli doonaa in la niyad jabo maaha xaalada ka adag musuqmaasuqu waa wax lala dagaalami karo laakiin ammaan in la sameeyo dagaal iyo halkan la galo xoreyn la galo oo dowlad la dhiso oo hubka dhigis la sameeyo dib u qarabayn la sameeyo cashuur la ururiyo hawlahaas ka sii adag musuqmaasuqu waxa weeyaan waa dowlad wanaag waa wax la samayn karo ku niyad samaada waa la samayn karaa waxay u baahan tahay oo kaliya hogaamiye adag oo diyaar ah oo qalabkiisii sita oo fahamsan waxa Soomaaliland ka qaldan fahamsan dabeetana diyaar u ah inuu saxo isagoo adeegsanaya ciddii la sixi lahayd iyo fakarkii lagula saxayay isagoo adeegsanaya marka waa wax laga gudbi karo weey taasi horumarku halkaasuu ka yimid waxay mashaariicda aan ka soo sheekay buu horumarku ka yimid lacag baynu samaysanay calan baynu samaysanay markii dambe dimuqraadiyad baynu samaysanay waxaan waa mashaariic waaweyn hadda waxaynu ku jirnaa economic developmentkii oo ah in employment la sameeyo la shaqo abuuris la sameeyo hawlaha waaweyn baynu ku jirnaa marka Soomaaliland guulaha intaa leegay soo qabsatay BBC-du way dafirtaa ma sheegto dee meel kuma sheegto waxay ag dhigaysaa in dadaan intaaba soo qabsan ama laga soo caawiyo muqdisho oo ogtahay xaaladeedu inay ku jirto xaalad adag ayaabay soo saarta bal 25 ka sanadood ama 26 ka sanadood ku dhawaad ay Soomaaliland hawsha soo waday bal dhinaca kale muqdisho maxaa ka dhacay in isweydiino dhinaca waxa ka dhacay maanta muqdisho xaalad ay ku sugan tahay maantada markaynu qiimeeyno waxa la yiraahdaa dynamic baa la yiraahdaa ammaankayga ma maamusho dhaqaalahaygana ma maamusho adduunyada oo gargaarayso caawinayso lacag la siinayo ag joogto intaasoo base ka samaysatay oo nabadgelyada lagu sugo oo ciidan shisheeyo dhowr 20 kun oo diiwaan gashan ay joogaan oo 30 kun oo Ethiopian oo diiwaan gashan ay joogaan oo kuwa Kenyatta iyo 8 kun lagu sheego diiwaan gashan ay joogaan oo intaasoo ciidan isugu yimaadeen iyadana waliba ciidan loo dhiso ilaa 25 kun oo ciidan haysata ayaa haddana ammaankii la hadda aanu sugnayn oo aanay cashuur ururin karin oo mashaariicdii dowladnimadu ay lahayd oo dhan ay ka radan tahay xafiiska yar madaxtooyada fiila Soomaaliya la isku taga inta kale ammaan lagu heli karana waa qof taga xalanaya aga u xiran muxuu daraha shisheeyaha iyo wadamada shisheeyada oo xiran nabad baan idin ka caawinaynaa leh haddii maanta laga baxana waxaas oo dhan way burburayaan hadda inta la sheegayay iyo waxa la hadalaya
ma xajisan karaan maanta haddii laga baxo qaar baad maqasheen fara badan oo lahaa farmaajo hadduu naga tago farmaajo hadduu meesha yimaado ciidanka Etoobiyaanka baxay haddii Etoobiyaanku maanta baxo 3 state oo ay dhisteen oo ilaa waa maamul goboleedyo regional states ayaa burburaya galmudug jiri mayso ciidamada Etoobiyaana jooga wad ogtiin iyo ahlu sunna jamaaciya ay joogaan cadaadiye meel walba hiiraanta hadda la sameeyay jiri mayso koonfur galbeedna jiri mayso markaasay meesha ka baxayaan xaqiiqdu waa taa weeye markaa muqdisho dynamic-ga noocaas ay ku jirtaa BBC-du wanaagun bay ka sheekaysaa xaaladda noocaas iyo wax kale oo aanan hadda doonayn waqti badan naga qaadan inaan ka sheekeeyo kama sheekayso weligeedna kama sheekan mana doonayso inay ka sheekayso wanaagga Soomaaliland waa la qarinayaa xumaanta reer Soomaaliland yar lagu arko cirka haysa la geenayo waa la buunbuuninayaa dadkii reer Soomaaliland xumaanta yar loo buunbuuniyay la jiboonaya oo markaa waxay naga dhiman sons of nationalism kama naga dhiman markaa muwaadiniinna nihinti min dad wadaniyiin min nihinti markaa way naga maqan yihiin xaqii wadankeenu aynu ku lahayn iyo waajibkii naga saarnaa labadaba waynu iska iloownayday xaq waa buu nasiyo nabadgeliyo iyo qurux iyo wanaag boo lagu helay maanta laakiin taasi nooma muuqato hadaynu saan aynu hadlano oo aynu mar walba saan u doodayno aniga iyo lama ahayn inoo muuqato haynoo muuqdo waxaynu samaysanay aynu ku dagaalano oo yeesheen iyo aabayaasheen wixii ay nooga tageen wanaaga kayd haynoo noqdaan wax inaynu ku biirinayno u baahannahay iminka waxa wanaaga la qabtay iyo halka la soo gaaray waa kayd ay uga iyo bayaasha qabteen kiibaad ku ciyaaraysaa dabeetana xamar inta loo duulo la oranayaa nabad baa ka jirta meel nabad ka jirin oo dadkan la hiya kicinaya markaas Soomaaliland caydeeda la wadaa dawladda caydeeda la wadaa xisbiyada la caayaya dimuqraadiyadda la caayaya wanaagii nabadgelyada inuu samaysanayno yaa caayaya inaga caayayno aflagaadeenna inta taasina ma aha wax wanaagsan mana aha inaynu saas oo kala samayno waxay adinaynu wax wanaagsan leenahay oo kor u qaadno isla markaa qaladaadka aynu gallayna aynu sidaynu u saxnaa iskaga nimaadno ka sheekaysanada ahayd ma ahayn saynu u soconnaa maaha si ibnaadamka meel looga socdo waa xayawaannimo oo aan wanaagsanayn dimuqraadiyadduna sidan ma aha oo adduunyadu san uma dhaqanto laakiin kaalintaa waxa gabay dadkii eliteska ahaa ama xisbiya ku jireen ama dawladda ha ahaadeen ee public relationska dejin lahaa ee psychoanalytical maaragtay thinking of the people of Somaliland thought provoking wax la yidhaahdo samayn lahaa ee maskaxda carin lahaa ee dadka wax bari lahaa ee wax samayn lahaa ayaa meesha inooga maqan taas waa taa weeye waxa kale oo aynu ognahay Soomaaliya inay itiraaf oo kaliya haysato wax kale ma hayso baleek u fiirso social disintegration baa jira dadku way kala furfuran yihiin state u gudbayay cid aaminsan ma jirto qabaayil bay u kala fadhiyaan qori bay isku fadhiyaan mid walba ciidan buu keensaday shisheeyo kale mid baa Ugandis wata mid baa Burundis wata mid baa Kenya wata mid baa Ethiopia wata mid baa Djibouti la joogtaa la isuma galaya xerooyinka noocaas ta kale waxa weeye waxa ku dhacay oo kale political fragmentation nidaam aan laba samaysan oo soconba karin oo Soomaaliya dhexdeeda ka socon karin oo laguba talagelin dadka isku afka ee isku diinta ee isku dhaqanka aan wax badan oo taariikh ku kala duwan yihiin aanay jirin in la kala qoqobo saa loo kala fariisiyo aan oo federalism la yiraahdo ayaa Soomaaliya madax loo geliyay iyagu may dooran looma codayn markuu state-ku doonayo inuu stage ka guuro systematic stage baa laga guurayaa another new systematic stage kale ayaa la gelayaa inta badan dadkay ku soo noqotay referendums ama afti baa la qaadaa taas weligeed xitaa dad la weydiiyo elites afti lama qaadi karo waxda doorasho lama kali karo amnigii baan sugnayn laakiin ma la isugu yeeray dadkii wanaagsanaa ee eliteska ahaa culimada diinkii dadkii wax bartay dadkii siyaasadda ku dhex jiray oo ma leeyahay maxay noo dana Soomaaliya weligeed lama oran lamana doonayo la yiraahdo waynu ognahay economically waa collapse nidaam cashuur lagu ururiyaa ma jirto maalin walba waa baryo in qorfada wax lagu soo qaato $50 milyan oo ay dawladda si toos ah inta soo saarto ay qaataa ma jirto airportkeygina cid kala fadhida madaarkeygina cid kala fadhida cid in yar afka laga siiyo lacag oo la siiyay ku dhaqdhaqaaqda mishaarka iyo askariga sa looga bixiyo xildhibaanka looga bixiyo madaxweynaha iyo wasiirada iyo prime minister cid walba looga bixiyo way ku faraxsan yihiin halkaas taageen BBC-duna taas la jeceshahay maxaa markaa dhacay dadka BBC la yaaba ma sheegaya BBC-du iyo VOA-da ku dar iyo meel walba ay Soomaali joogto waa laga haystaa dagaal markaa war on media la yiraahdo lagu soo qaaday wixii wanaagsan oo dhan baa laga qaadaya wixii xumaa oo dhan baa lagu saaraya
dhibaatada waxa kaliya oo iskaga difaaci lahaydna waxay ahayd inay dowladdeenu inoo sameeyaan waxa la yidhaha public policies siyaasad qaranku uu ku shaqeeyo oo wasaarad walbaaba ay ku shaqayso oo transparent ah oo daahfuran oo la yaqaano hadday taasi inoo jiri lahayd qaladaadkeennii waxaynaynu sixi lahayn wax walo laynagu leeyahy waxbay nagamay tarin dadka gudaheennuna way is haysan lahaayeen oo dad walaalo is haysto meel u socdo ujeeddo leh ayaa laga dhigi lahaa oo hamadooda ayaa kor loo soo qaadi lahaa enthusiasmkooda iyo hawaayadooda inta kor loo qaado loodhan lahaa halkaasaynu doonaynaa inaynu gaadhno oo vision baa la abuuri lahaa public policiesku vision bay abuuraan waxa kaloo inaga maqan oo aad arkaysa inay naga maqan yihiin waxa la yidhahdo pillars of governance pillars of governanceku waxa weeyaan shuruucda dowladnimadu ay ku shaqayso oo dadkuna ay la yaqaanaan ay kula shaqeeyaan sharcigaa dowladdu saasay tiri kana sidaasay tiri waa lagula shaqaynaya dadkii baa fahmaya dadkii baa la baraya curriculumka iskuullada lagu daraya waxa weeyaan dad meel u socdo oo la yaqaano meeshay u socdaan weeye markaa taasina waxaad ogtahay inaanay jirin waxaynu ku soo goobannay internal conflict oo weliba cidda u sii daadegaya intuu sii fool xumaaday qabaayil u sii daadegaya reer hebel xusbigan buu leeyahay reer hebel xusbigan buu leeyahay tii aynu qarsannabee aynu nidhi democracy baynu nahay oo dibaddaynu u soo saarayna waa kaa kalba suldaan soo fadhiistay telefishon ay yidhi haddaanu beelheblaayo nahay waxnu gallay halkan iyo beelheblaayo haddaan nahay waanu ka baxnay kan deetana intii bay qaateen way ku baabiiyeen dadkaagiibaa carruurtaadiibaa maalin walba la qaadanaya jiir baa laga dhigay rats kubasaasa niyad jabiye kale iskuulka dhiganaya waxbarashadii nabadgelyada haysta niyad jabiyo xamar uga dhiga oo ololaysa oo qiiqaysa oo inay wax ka degto aan ogahay maanta anugu 25 sannadood soo socotay inaan wax badan iska bedeli karayn oo caqabadaha dowladnimada wax ka adeegaanay jiray inay dhisanto ayaa loogu baaqayaa oo loogu yeedhayaa leeyahay halkan oo inay lacag la sii ugu yeedhay oo hotel la dejiyey oo security adag lagu xiray oo aan waxba noqonayn oo dhibaatoonayn ayaa u yeedhayo deetana markaa niyad jabalmay midda kale dowladnimadu waxay stageska kalba contextka xaaladaha lagu jiro inay la socoto ayaa wanaagsan stagekii ay ku jirtay 2010 Somaliland maanta kuma jirto maanta dadku wada Facebook bay leeyihiin waxa warkaygaan halka idinka soo tabinay dad badan baa akhrisan doona maqli doona daawan doona internetka ba faasoo la haystaa awal waxaan ma jiri jirin nin walbaaba wuxuu ku kalsoonaan jiray inta yar uu dowladda ka arkayo waxa inta mucaaradka ka arko laakiin way ka baxeen oo way isku xidhmeen kii Suudaan joogay Soomaaliga ahaa iyo kii Muqdisho joogay waxaan way isku xidhayaan haddaad markaa siyaasad cad oo dowladeed samay weydino public policies-ka aan hadda ka sheekeynayo iyo pillars of governance-ka dee dalkaagii shaqayn kari maayo socon kari maayo ugu dambayn waxaan u baahannahay inaynu samayno national awareness dowladda looga baahan yahay oo kow ay ka tahay public relations la sameeyo oo vision la abuuro oo public policies waaweyn la dejiyo oo pillars of governance la dejiyo oo dabeetana dhalinyarta lagu hago oo jaamacadaha la bedelo si u shaqaynayaan oo wadaniyada lagu xidho oo iskuulaadka wadaniyada lagu xidho oo dadkan dalkooga la jeclaysiiyo oo dadkan dalkooga inay leeyihiin la baro oo dalkan dalkooga inay cid u dhaantaani jira haddii Soomaaliya iyo Somaliland midoobayaan Somaliland iyo Soomaaliya wada socdo dadkooga midoobaya individualskan yaacaya baxsanaya fakanaya si jiirka u baxsanaya niyad jabinaya kuwii kale sii joogay dhibaatada ku haya iyo qadiyadan meel alla meel ay u socoto la garan waayay gidaarka madaxa ku dhufatay intay kuwii maamulayay garan waayeen dabeetana odayaashii ku soo socdeen oo oday maanta aan cilmi iyo caqli u leeyahay jirin oo la yidhi reerbeed hor joogtaa hoos fadhiya taas inaynu ka baxno oo aynu ka badbaadno aynu u baahannahay arrinta ugu dambaysa BBC-da shalay waxa la casuumay 4 nin baleeg tusaalaha waxaa soo hadal igu dhaliyay baan doonayay inay soo gulaanado 4 nin baa shalay la casuumay laba ka mid reer koonfureed buu ahaa Somaliland qadiyadeeda maxaa ka khuseeya way odhan kari waayeen labadii nin midna wasiirka madaxtooyada ahaa midna uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka way odhan kari waayeen war anaga dee ku kala duwan qadiyadan reer Somaliland baan wadanahay yaa dooda nala gelaya laba nin oo aqoon-yahan oo Somaliland oo qadiyada Somaliland oo galmiya la waayay maxaa laba nin oo aqoon-yahan oo qadiyada Somaliland diidan oo ka soo horjeeda loo keenay idaacadina markaasay ku leedahay dowladda federaalka ayaa waxaan diidan marka ka ereyga federal marka lagu leeyahay macnaha waxa weeyaan adigan hadlaya waxaad ku hoos jirtaa federaalka waa in la yidhaahdaa Soomaaliya way diidanta Soomaaliya inagu sayna wax federaal la yidhaahdo aynu garanayno oo aynu naqaanaa ma jirto wax federaal oo system oo shaqeynayo Soomaaliya ka shaqeynayna ma jiro
inana kuma jirno maxamuud xaashi wuxuu ku leeyahay federaalka kala aragti baanu arrintaa ku nahay taas waxay caddaynaysaa in federaalka waxaad u nuglaatay madaxa kaaga dhufteen oo kaaga fadhiisteen oo ku miyir doorsiiyeen inay ku ogolaysiyaan inaad federaal ka mid tahay markaa tale federaalka arrintaa waanu ku kala duwannahay marka arrimo kaloo iskaga mid tihiin baa jira soo maha nimankaad qadiyadda dhan isku hayseen cabdiraxmaan ereshna wuxuu ku leeyahay saaxiibkay cabdi ismaaciil oo wuxuu doono ku hadlayo oo qadiyadda somaliland ka soo horjeedo isagoo wax walba og labada indhood isku qabanaya ayuu leeyahay wax alla waxa uu yidhi oo dhan ee ahaayeen maamul goboleed iyo gobolka yar ee somaliland la yidhaahdo iyo sidaas iyo soomaaliya hoos yimaada waxaasoo dhan waan ku raacay ku leeyahay labadan nin ee somaliland ka socday midna dowladda ka socday midna xusbigii the main opposition party midna the government of somaliland buu ka socday labadii nin bal waxayna yidhaahdeen laba nin oo aqoon-yahanabaa loogu yeedhay calooshay u fadhiisteen qadiyadiiba gebigeygiba inta laga bedelay halkii u socotay anugu waxaan ahay dadka kow ka soo horjeeda in saldhigaa military la sameeyo haddana waan ka soo horjeedaa waayo faa'iida ayuu leeyahay oo aan 100 jeerna waan ka hadlay ku noqon maayo iminka faa'iida ma jirto laakiin markay noqoto in nimankaa la yeedho waxaan leeyahay waa nimankan aniga igu yeedhina anigu BBC inta wada hadlaama BBC laga soo xasuumay xirooy intuu wasiirku la hadlaamo xirooy wasiirka la soo hadlo nimankan inala doodaya qadiyadda somaliland ma aaminsana inaguna dad reer somaliland aynu nahay maxaynu ka yeelnaa waa la odhan kari waayay inagu kiciya dabeetana way dhex dabaasheen madaxaa laga soo garaacay dabeeto BBC-duna markaasay dhinacii labada nin intay soo martay ku dul tirtirsatay qadiyaddii somaliland oo dambaska laga dhigay inay soomaaliya hoos timaado oo ayay soo yaaceen markaasay dadkii reer somaliland ee facebook iyo meel walba ka hadlayay social media ku xidhnaa ee meel walba ku xidhnaa ayaa waxay ku leeyihin cirraa badiyey maaye maxamuud xaashaa badiyey bal waxa lagu doodaya ilaahay baan ku dhaari waa dhallinyaradii labeenta u noqon lahayd waddankan ee socodsiin lahaydba waxay ku murmayaan cirraa badiyey maya cirra ma badin maxamuud xaashaa badiyey hadda labadooda waa laga soo badiyey oo somaliland baa laga soo badiyey oo waa la soo siyaasadeeyo qadiyad hadalkani wuxuu ka daran yahay waxaa media la yidhaahdaa waa double edge sword wey seef laba abxo wey ama waxbaad ku dili ama aday ku dili taa kugu soo jeedaana waa seefo way ku dilaysaa hadday kugu soo dhacdo adiguna markaad saa tidhahdo way dilaysaa way wax ka muruq afkaa wax ka muruqaa yara carabka wax ka adag ma jiro dagaal ka adag ma jiro adduunyada ay gashaan bal eeg code warka eeg dagaal ka adkaa muu jira ee lagu kala guulaystay maanta manficii adduunyo ay lahayd oo dhan maraykan iyo yurubiyaanku ay ku qaateen ee ruush iyo soviyedka cidlo lagaga tegey muu hayn qori laysku qaato lagu kala adkaaday muu hayn faa'iidadii ugu badnayd ayaa soo gashay markii dagaalkii afka kaga guulaysteen dagaalkii afka diblomaasiyadda carabkaasaa lagu kala guulaystay iyo ideologies baa lagu kala guulaystay tiibaa maanta somaliland laba nin loogu yeedhay laga soo guulaystay markaasay dadkoogii kala taageersanaayo masaakiinta ku murmayaan cirraa guulaystay maye maxamuud xaashaa guulaystay waa qoladii kulmiye taageersanayd iyo qoladii waddani taageersanayd waa nin san aynu isku dhaanay ilmaadeerka waxaan waxa weeyaan waxaan socon karayn oo aan shaqayn karayn somaliland san ku shaqayn kari mayso san ku socon kari mayso waxaa looga baahan yahay dowladda iyo dadka xilkaska ah ee meel walba ha joogaan ama mucaarida joogaan ama meel kale ha joogeen war dalkeenna san aynu u dhaananiyo oo gabdha iyo hoos san aynu u dhaano oo innagana isku muuqanno ee la iskeen tusay uun dimuqraadiyaddan yaree socon weyde meel low dhaqaaqi weyde dee ila fikir baa lagu wadaayo afkaar iyo ahdaaf baa lagu wadaayo oo siyaasad iyo aragti baa lagu wadaayo markay aad u dhiibateen dadaan wadiba karayn oo aan dhaqaajinba karayn oo halkaa ay taagan tahay meel lagu wadi karin ayaa dabeetana kusoo goobatay inta jaranjar dheer kasoo dhacdaan idinkoo dawaqsan inaad ku murantaan reer hebelkan uu codaynaya halkan buu maraya halkan buu maraya dabeetana hebelheblaya halkan ka baxasay halkaasaa kay baxasa bal waxaynu ilaahay baan ku dhaariyey ku sheekaynaynaa war waxaynu u baahannahay dalkeenna inaynu hagaajisano inaynu dhisanno inaynu samaysanno waxaynu ku kala badbaadno aynu kaga badbaadno colaadaha adduunyada iyo waxyaabaha kala gedsan iyo maaragtay shoorka adduunyada ka dhacaya shoor baa ka dhacaya adduunyada meel walba waxbaa saa uga soo baxaya taa inaad ka badbaadaa loo baahan yahay dhaqaale ahaan inaad badbaadaa loo baahan yahay mujtamac ahaan inaad badbaadaa loo baahan yahay fikir ahaan inaad badbaadaa loo baahan yahay diintaada iyo waxaad aaminsan tahay inay badbaadaan baa loo baahan yahay aragtidaada iyo afkaartaada iyo himladaadu inay badbaadaad u baahan tahay oo aad dhaxal uga tagto kuwa kuu soo socday dhali doonto
inta yareed haysata rag baa kasoo shaqeeyo keenay dirqi ku keenay bilaa mushaar bay ahaayeen ragga keenay waxaanaad maanta aad ku murmaysaaneed ku dulqaylaysaan qaadka ku dul cunaysaanad jaawareerteen ragga keenay waxay ahaayeen rag dhexda xidhay oo gaajaysan bay ahaayeen oo mushaarna aan qaadan tii baa doonaysaan inaad idinku cuntaan ood gofano ku noqotaan parasites baad noqoteen war waxaynu u baahannahay inaynu qadiyadeenna hal mid ka dhigno oo aynu midayno oo aynu hore u soconno dee hadal maanta o dhan badin maayo waan ka badiyey intaan ugu tala galee intaasaan kusoo gebagabeynayaa b b c-dana ha laysku ogaado waxaynu u baahannahay inaynu ciddaa eedayno iyo ciddaa inaynu eedayno uma baahno waxba inaga qaldano wixiina aynu saxayno aynu hagaajisano si aynu hore ugu soconno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu